kartaa dadka qaarkood inay dhagahooda soo gaadho kelimad aan runtii miisaan cilmi lahayn oo ah Somaliland hadday go'day miyaan iyada laga sii go'i karin tan noocaasiya waxaanu leenahay ummadda muslimiintu waa isku xuquuq isku waday martaa nin bay ka sheegayeen xilahaygu wixii xilo muslim ku furmaabay ku furmaan waxaanu leenahay Somaliland aayad gaar ah oo ku soo degtay iyo xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam si gaar ah ugu soo arooray ma jiro laakiin ummadda kale muslimiinta la wadaagtaa dawlad kasta oo muslim oo meel ka jirta haddii maamulkeedu meel gaadho oo meeshaasi kala dambayntu ku soo noqoto in cid laga jaraa sharcan wax bannaan ma biijmaaci ahli ilcilmi wax bannaan ma dawlad muslima magacay doonto ha yeelato haddii maamulkeedu meel gaadho meesha uu ku siman yahay in la yidhaahdo cid baa laga jarayaa dawladdaasi magacay doonayso ha yeelato wax bannaan ma Somalilandna iyada oo aan dawlad markaa shaqaynaysaa jirin bay dawladdeeda dhisatay ciday ka go'day sharcan marka miisaanka sharciga ah la saaro haba yaraatee ma jirto marka cidda rabta ummadda si kale inay dhiiggeeda ku bannaysataa war ilaahay ha ka baqeen wadaadaduna ummadda dhex bay u yihiin dhiigga muslimkuna waa isku xukun in markaas si markaas sahlan lagu daadiyo ma aha waxaynu leenahay maqaamka ummadda u fadhidaan ilaaliya oo marka dhiigga muslimka lagu baaqayo ee hadalla aan markaa mas'uuliyad lahayn ku baaqaya iyo marka waxa weeye dad kale ay gaalaysiinayaan ku dhiirada inaa xaqa sheegtaan oo markaa xaqa si bareera leh u dhiibta haddii la doonayo ummad muslima in la mideeyo magacay doontoba ha yeelato midnimadu dariiq bay leedahay ay ka mid tahay marka koobaad in ilaahay la isu dhiibo waayo ka wax mideeya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa muxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku leeyahay low anfaqta maa fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim waxa dhulka koryaal oo dhan haddaad ku bixin lahayd rasuul allow quluubtooda isumaad keeni karteen walaakina allaha allafa baynahum horta marka hore waa in la ogaadaa ka wax mideeya waa alle subxaanahu wa tacaala midayntuna quluubtay ka dhalataa iyo in la isku kalsoonaado oo kalsooni la beero oo laga tago wax kasta oo ummadda sii kala kaxaynaya haddii lagu dhiirado wax kasta oo ummadda sii kala kaxaynaya lana yidhaahdo midnimaa jirtaa oo loo baahan yahay taa macnaheedu waxay noqonaysaa markaa dhaan dabagaalle ayay noqonaysaa ama wax iska baraankiya bay noqonaysaa waa midnimo baraankiya arrin saxa maaha war ilaahay inta laga baqo ummadda dhiiggeeda si yar yaan lagu bannaysan waqtiyada qaarkood waxaad arkaysaa qaarkood markaad tahid maxaad ku diidan tahay dowladaha caalamka jiraaba ictiraafkooda kitaab iyo sunne looma bandhigina gaalaa ictiraaftae iyagaana caalamkan maanta ka taliya oo waxaan dejistay oo shanta fiita baa war kale mooyaane cid kaloo arrinkeeda si madax bannaan uga talisaa ma jirto iyagu masaalixdooda waxay ku ilaaliyaan inay markaa fiita cabiraan laakiin ummadaha inta kale waa loo taliyaa markaa tayd maxaad ku kala soocaysaa wax xigmad leh oo lagu sheegayaa ma jirto qaarkood waxay ku odhanayaan waa yahuud iyo gaalada kalena ictiraafkoodu waxay ku kala duwan yihiin ma jirto qaarkood waxaa laga yaaba inay ku yidhahdaan waa isticmaar oo beled muslim bay haystaan oo isticmaarka ma iyagunba ah
soo kuwan isticmaalka inagu wada dhow ee hareeraha inaga xiga ee meel kasta jooga waa midda kale nebigu sallallahu alayhi wasallam qoladii quraysheed iyaga oo haysta makaan la arko halkii ugu qiimaha badnayd oo Maka ah oo guriyihii saxaabada haysta iyo hantidoodii ayuu la heshiiyey nebigu sallallahu alayhi wasallam sulhul hudaybiyah oo 10 sano kula heshiiyey iyagoo hantidii ummadda iyo guryahoodiiba haysta marka waxaynu leenahay wadaadada aad moodo inay abaabulan yihiin ee masaladan taabanaya ama si cilmi leh masalada ha ugu soo banbaxeen waayo wax badan baanu weli xiirinaynaa oo in culimadu si badan isu naqdido inta badan waa ka gaabinaa laakiin ama si cilmi leh ha uga hadleen ama bulshada tashuushka ha ka daayeen